gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil cali axmed kooshin oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada berbera ayaa waxa uu dhaliilo culus dusha uga tuuray golaha wakiilada ee Soomaaliland ee maanta ansixiyay heshiiskii dhawaan ee xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda DP World saako ay bishu tahay 10 bishii 8aad golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ansixiyeen xeerkii amba heshiiskii lagu wareejinayay dekada berbera waana ogeydeen oo dhammaan bulshada Soomaaliland waxay daawanaysay dooddoodii shalay ee xubnaha golaha wakiilada oo ciidii hadashabe ay sheegtay inuu aanu ahayn heshiis rasmi ah amba xukuumaddu soo gudbisay ay sheegtay inaanu ahayn heshiis rasmi ah ee uu yahay heshiis hordhac xubnihii golaha wakiilada shalay doodda ku jireenaa dhammaantood waxay cadeeyeen inaanu kale sharci iyo heshiis toona ahayn oo xukuumadda dub loogu celiyo saakale waxay ku ansixiyeen codka golaha wakiilada wali hore uga dhicin amba koorab amba fadhi inta leeg oo isku yimaadaan 70 iyo dhowr xubnood oo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan waa kii ugu horeeyay ka dhaca waxa la horta waa wuxuu noqonayaa fadhi taariikhi ah oo diiwaanka gala wixii khaldana ay ummadda shalay u baahiyeen ee dadka shalay u sheegeen inay maanta u codeeyaan oo yiraahdaan waa sax macnaha de waa laba arrin oo aan isqabanaynin annaguna sidii aan runtii u arkaynay ayuunba shalayto u sheegeen waxaan isleeyahay golaha wakiilada Soomaaliland baarlamankii dawladdii Eritrea ee 1955 oo kale inay maanta taagan yihiin baad moodaa amba ay taariikh ahaanba la garab dhigi karaa waayo dawladda Eritrea xilligii ka horreeyay waxa gumaysan jiray dalka Talyaaniga markii naasigii la jabiyay Jarmalku qoladii hogaaminayay markii la jabiyay Ingiriiska dub xukumay xilligaa xeerkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa dub wax looga bedelay waxaanay lahaayeen dawlad iyo baarlamaan iyo daaqiliyad jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa dusha ka ilaalinaysa leeyahay cid gumaysan mayso ayagoo baarlamankoodii leh ayuu boqorkii Itoobiya Haile Selassie ayuu baarlamankii Eritrea wuxuu ka saxay intuu lacag siiyay inay Itoobiya ka mid yihiin 1955 baarlamankii Eritrea waxay saxeen inay dawladda Itoobiya ka mid yihiin sidii bay kaga mid noqdeen baarlamankoodii waa saxaxay waxay xorriyadda waa garanaysaa isla xilli bay dub qaadanay 19 ayagoo dagaal badan iyo dhibaato badan soo galay cad moodaa baarlamankii Soomaaliland inay la mid yihiin kuwa Eritrea xilligaa waxaan hambalyeeyaa runtii xildhibaanada reer saaxil ee diiday heshiiska ee saaka kaligood golaha ka diiday ee taagnaa waxaan leeyahay hambalyeeyaa geesta kale waxa uu fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka saaxil iyadoona uu dhinaca kale ku canaantay maamulka gobolka saaxil ciidanka ay soo dhoobeen wadooyinka ee ay shacabka ku dhaqan gobolka saaxil cabashada ka muujiyeen waana kan Cali Axmed Kooshin oo arrimahaasi ka hadlaya kaalkaas ku dhaafaya waxaan fariin u dirayaa bulshada reer saaxil ee dareenka dheer ka qabtay arrinta golaha hortaala kuwa gobolka Togdheer jooga kuwa degmada Madheera iyo Sheekh jooga waxa leeyahay u qaadanina wax weyn oo dhibaato waa wax iska caadiya kacdoon iyo mudaharaad iyo ila dhib sameeysaana wax inoo yaala maaha iyo hadal dambe arrintaasi halkaas ay golaha hadday ansixiyeen istajisaydaana shucuurtiinu aanay kicin baan u gudbinayaa wax dhibaato dambana aanay samaynin amnigana ay ilaaliyaan iyo nabadgelyada taladuna waxay u taalaa dadka reer saaxil waxaan taalaabaan u malaynayaa shirka baxana saafka 25 bisha lagu cilaamiyay laakiin way amniga ilaaliyaan Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera